kulanti wanaagsan daawadayaal qodobada muuqaalkan aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah wadahadaladii madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo fashilmay iyo wasiir ka tirsan Galmudug oo sheegay in wadahadalada uu fashilay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddaba muxuu Farmaajo u fashilay wadahadalada lagu dhaxdhaxaadinayay isaga iyo ra'iisul wasaare Roble balcelin fara badan oo ka dhalatay fashilka ku yimid dhaxdhaxaadintii Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo isbitaal ku yaalo dalka Jarmalka qalliin lagu sameeyay haddaba waa sidee xaaladda caafimaad ee madaxweyne Axmed Madoobe warbixin arrintaasi ku saabsan ayaa daawadayaal halkan ku daawan doontaan Villa Soomaaliya oo xiratay gaari aanay xabadu karin oo ay siisay Bashiir Goobe maxaa sababay in Villa Soomaaliya Bashiir Goobe gaarigaasi ay dib uga cishato qarax jubtiisa laga maqlay meelo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose oo maanta barqadii halkaasi ka dhacay haddaba waa maxay khasaaraha ka dhashay qaraxaasi iyo falcelinta dadka deegaanka ay ka falceliyeen qaraxaasi ayaanu daawadayaal idin soo gudbin doonaa madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo warbixin ka siiyay qaramada midoobay xaaladaha dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalka ku daawan doontaan haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu alaaba halkan soo gelino aanu ku horreynee waxaa lagu soo warramayaa in uu fashilmay wadahadaladii lagu dhaxdhaxaadinayay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble wasiiru dowlaha madaxtooyada maamul goboleedka Galmudug Cumar Shiido oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa waxa uu ku sheegay in wadahadalka ka dhex socday madaxweynaha muddaxileedkiisu uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu guul dareystay Cumar ayaa waxa uu tilmaamay in wadahadalka socday maalmihii la soo dhaafay ay mararka qaar soconayeen 18 saacadood oo kaamil ah balse aanay jirin natiijo muuqato oo la soo bandhigi karo wadaxaajoodkaasi isla markaana uu u muuqdo mid ay ku guul dareysteen wadaxaajoodkaasi oo ay garwadeen ka ahaayeen gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor wasiiru dowlaha madaxtooyada Galmudug ayaa intaasi sii raaciyay in dhanka ra'iisul wasaaraha uu bisayl siyaasadeed uu ka muuqday balse caqabada ay kala kulmayeen madaxtooyada Soomaaliya sida uu ku muujiyay qoraalkiisa oo banaanka soo dhigay halka uu marayo wadahadalka sida aad la wada socoteenba madaxweynaha dowladda Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo maalmahanba ku howlanaa xalinta khilaafka ka dhashay kiiskii Ikraan Tahliil oo sababay muran aad u ballaaran oo u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble dadaal badan oo uu bixiyay madaxweynaha Galmudug oo marxalado badan soo maray iyadoo xilliyada qaar ay shirarku qaadanayeen ku dhawaad 18 saac ayaa gunaanadkii waxa uu ku soo dhamaaday fashil iyadoo ra'iisul wasaare Roble garabkiisa ay muujiyeen bisayl badan dhanka arrimihii laga dalbaday caqabadna lagala kulmayay dhanka madaxweyne Farmaajo intii wadahadalka ay socdeen waxaa sidaasi qoraalkiisa ku yiri wasiiru dowlaha madaxtooyada Galmudug qodobada la isku mari waayay ayaana waxa kamid ah wasiirka amniga oo Farmaajo uu dalbaday in laga qaado Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo sidoo kale magacaabista taliska Nisa oo Farmaajo uu doonayo in isaga uu soo taliyaha Nisa qof isaga uu wato fashilkan ayaa noqonaya kii labaad ee muddo toddobaad ah ku yimaado wadahadallo laga dhaxwaday Farmaajo iyo Roble waxaana muuqata in labada nin kan hore uu door bidayo in cadaalad aysan helin Ikraan Tahliil hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ugu baaqay in ay mowqifkooda cadeeyaan isla markaana shacabka ay la wadaagaan waxay ka soo baxay waanwaantii ay wadeen iyo cidda ka dambeysay fashilka wadahadalada Farmaajo tanaasul iyo weliba xal laga sugi maaye ee qoladii dhaxdhaxaadinta waxay mowqifkooda shacabka waxa mudan in mowqifkooda shacabka ay u cadeeyaan ayuu yiri Warsame shacabka dowlad goboleedyada midowga musharaxiinta iyo beesha caalamkaba labalabaynta ha iska daayaan ee ra'iisul wasaaraha garab buuxa siiyaan ayuu ku sii daray fariintiisa Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ku baaqay in la dardargeliyo howlaha doorashada isla markaana cadaalad
cadaalad buuxda loo helo ikraan tahliil. hogaamiyaha xisbiga wadajir waxa uu sheegay in ujeedka ugu weyn ee uu farmaajo ka lahaa wadahadalka uu ahaa in kiiska ikraan laga hagaldaaciyo wakhti la iibsado si uu u soo kabto faylasha waagii xilka laga qaaday agaasimihii hore ee nisa iyo in la hakiyo dardarta ra'iisul wasaaraha ee gacan ku haynta hay-adaha amniga. wadahadallada ay garwadeenka ka ahaayeen madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo guddoomiyihii hore ee golaha shacabka wakhtiga uu ka dhacay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ugu dambayn waxaa soo burburay dadaaladii ay wadeen habeennimadii xalayto kadib markii kooxda farmaajo ay diideen xalka qodobada lagu muransanaa. waa markii labaad oo farmaajo uu ka hor yimid xal in la gaaro dadaallo dhexdhexaadineed oo ay sidani oo kale garwadeen uga ahaayeen lafta gareen iyo qoorqoor ayaa burburay 12 bishan kadib markii farmaajo uu diiday qodobo loo arkayey xal macquul ah in ay yihiin. dhinaca kalena daawadayaal ilawareedyo kala duwan oo ka tirsan hay-adaha ammaanka iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa channelkeena u xaqiijiyay in madaxtooyada Soomaaliya in ay kansashay gaari nooca aan xabadda karin oo hore loo siiyay Generaal Bashiir Goobe. gaarigan waxaa bixisay Villa Soomaaliya sanado ka hor, hase yeeshee toddobaadyo ka hor ayaa shirkadda gaariga laga iibiyey loo diray warbixin sheegayso in gaarigan uu u gacan galay Al-Shabaab, waxaana gaariga loo diiwaangeliyey in uu jiro dhinaca Al-Shabaab. xogta la helay ayaa tilmaamaysaa in shirkadaha ay awood u leedahay in ay la socoto dhaqdhaqaaqa gaariga maadaama uu ku shaqeeyo system computer ah. sidoo kalena waxaa jirta xog kale oo sheegayso in shirkadda ay awooddo inay damiso gaariga inkastoo aysan sugnayn xogtan dambe. saraakiisha ammaanka ayaa sheegaya in sababa amniga uu isaga dhigay gaariga kadib markii la gudbiyey xogta gaariga, waxaana lagu wareejiyey gaari kale iyo ciidan militari. madaxweyne farmaajo iyo saaxiibadiisa ayaa aad u diidan magacaabista Generaal Bashiir Goobe ee loo magacaabay agaasimaha taliyaha nabad sugidda Soomaaliya inkastoo si kumeel gaara lagu dhiibay. waxaana lagu soo warramayaa in Bashiir Goobe la saaray culaysyo badan oo dhanka amniga kagana imanayo Villa Soomaaliya. sida aanu xogta ku helnay Villa Soomaaliya ayaa ku cadaadisay Bashiir Goobe in uu diido magacaabista Rooble uuna beddelkeeda qaato lacag, balse waa uu ku gacan sayray arrintaasi. Bashiir Goobe ayaa doonaya in uu Rooble ku caawiyo sidii cadaaladda ay u heli lahayd ikraan tahliil oo dhammaan feelasha qarsoodiga ee yaallo xarunta nisa iyo guud ahaan godka Jilicow uu bannaanka keeno. qarax xooggan oo jugtiisa laga maqlay meelo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maanta barqadii waxa uu ka dhacay inta u dhaxayso degmada Afgooye ilaa iyo deegaanka la yiraahdo Mareerey ee gobolkaasi Shabeellaha Hoose. qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa goobjoogayaal sheegeen in lala eegtay gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dawladda oo ka yimid dhinaca deegaanka Mareerey kuna soo wajahnaa degmada Afgooye. wararka la helayo ayaana waxay sheegayaan in qaraxa uu ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah, sidoo kale ciidamada qaraxa kadib ay fureen rasaas fara badan. wararka ayaa intaasi ku sii daraya in ciidamada dawladda ee qaraxa lala beegsaday ay howlgallo miina baaris ah ka sameeyeen wadada xiriiriso degmada Afgooye iyo deegaanka Mareerey, halkaasi oo dhowr jeer ay qaraxyo ka dhaceen. maamulka iyo laamaha amniga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose weli kama aysan hadlin qaraxa lala eegtay ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya. qaybihii dambe ayaanu daawadayaal ku sii dhowaanaynaa iminka haddii aanu eegno dhanka caafimaadka madaxweynaha Jubbaland iyo wararka la xiriiro in isbitaal la dhigay. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa la dhigay isbitaal ku yaalo dalka Jarmalka kadib markii laga saaray isbitaal kale oo ku yaalo dalka Imaaraadka Carabta, sida channelkeena uu ogaaday. channelkeena ayaa helay xogo sheegayo in Axmed Madoobe uu 3 qalliin oo dhanka qabsinka ah uu ku galay isbitaal weyn oo ku yaalo dalka Jarmalka oo ka mid ah wadamada ugu tayada wanaagsan dhanka adeegyada caafimaadka bixintooda. xogta aanu helnay ayaa sidoo kale tilmaamaysa in marka hore la qorsheeyay in lagu qalo isbitaal ku yaalo dalka Imaaraadka Carabta, balse dhakhaatiirta ay kula taliyeen in loo qaado Jarmalka. wararka ayaa sidoo kale sheegaya in dhaawac muddo dheer ka hor soo gaaray madaxweynaha iyo weliba sidoo kale xanuuno kale oo dhanka caloosha
uu ka qabay la sheegay in muddooyinkan uu aad u dareemay uuna go'aansaday in qalliin lagu sameeyo. ila wareedyo ku dhowdhow madaxtooyada Jubbaland ayaa sheegay in madaxweynaha uusan ku jirin marxalad adag ayna xaaladiisa aad u wanaagsan tahay kadib markii qalliinkaasi uu maray. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa dhowr jeer oo hore waxaa lagu fuliyey qalliino u badnaa dhinaca barida oo uu ka qabay dhaawacyo hore u soo gaaray. Axmed Madoobe ayaana ka mid ah mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee dadaalka ku bixiyey in Jubbaland laga saaro dagaalamayaasha Al-Shabaab, dagaal badanna la galay kooxdaasi Al-Shabaab. ugu dambayntiina daawadayaal madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa khudbad waxa uu ka jeediyey shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York ee dalka Mareykanka isagoo oo ka hadlay arrimo dhowra. madaxweyne Geelle ayaa khudbadiisa waxa uu kaga hadlay xaaladda Soomaaliya, dagaalka Itoobiya iyo sidii la isugu soo dhaweyn lahaa Jabuuti iyo Eritrea. waxa uu sheegay in Jabuuti ay ka go'an tahay sidii ay ugu tallaabsan lahayd wadamada Geeska Afrika mustaqbal ku dhisan nabadgelyo iyo xasilooni la isku halayn karo iyo sidoo kale maskax dhinaca dhaqaalaha ah oo ay ka wada faa'iideystaan dhammaan wadamada Geeska Afrika. sidoo kalena uu ka xun yahay qaabka sidii loo baahnaa ay ku socon waayeen dadaalkii la isugu soo dhaweynayay dalalka Jabuuti iyo Eritrea. Jabuuti waxaa ka go'an in mar kasta ay ka shaqayso dhismaha mustaqbal wanaagga, nabad waarto iyo isdhexgal dhaqaale oo adag oo heer degmo ah oo ay kala faa'iideystaan dhammaan dadyowga ku nool dalalka Geeska Afrika, ayuu yidhi madaxweyne Geelle. madaxweynaha Jabuuti oo ka hadlayay arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Jabuuti ay soo dhaweynayso horumarada ka socda Soomaaliya, sidoo kalena golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay la wadaagayso walwalka ay ka qabaan xaaladda hadda ay marayso Soomaaliya. khudbadda madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo aad u dheerayd ayaa waxaa kale oo uu kaga hadlay xaaladda dalka Itoobiya, waxaana uu sheegay in ay la socdaan xaaladda cakiran ee ka jirta Itoobiya islamarkaana uu rajo ka qabo in dadku si nabadgelyo ah ay u wada deganaadaan. intaas ayaanu daawadayaal ku soo gabagabeynaynaa muuqaalka aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya iyo caalamka. tan iyo inta aanu dib ugu kulmi doonno warbixinno kale waxaanu daawadayaal iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.